Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galwareed media qodobada aad ku daawan doontaan waxa ugu dooran maxkamadda ICJ oo mar kale dib u dhigtay dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay dib u dhigista ICJ dacwadda badda dagaal laga cabsi qabo inuu dhex maro beelay ka soo kala jeedaan Janan iyo Farmaajo iyo jufada uu ka soo jeeda Farmaajo gobolka Gadaal lagu aruursanayo xiisad dagaal oo ka taagan degmada Balambal iyo dilal ka dhacay degmadaasi. Al-Shabaab oo dab qabadsiiyay gaadiid jaad siday dadkii watana dilay. Muuse Biixo ciidamadii ugu badnaa geeyay gobolka Oodal deegaano ka mid ah iyo barakicin halkaa ka bilaabatay. Warka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Turkiga oo xayiraad ku soo rogay hubka nukleerka ee Mareykanka u yaala Turkiga. Haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino. Taariikhdu waxay tahay 18 bisha 10 Oktoobar 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada saaxiibayaal. Maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ ayaa mar kale dib u dhigtay dhageysiga kiiska dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya sida uu xaqiijiyay safiirka Soomaaliya Midowga Yurub Cali Saciid Fiqi. Maxkamadda ayaa go'aamisay in dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya laga dhigay 8 Juun bisha 12 ee sanadka soo socda 2020. Maxkamadda ayaa go'aankeeda ku cadeysay in go'aankan uu yahay mid kama dambeys ah oo mar dambe aan dib loo dhigi doonin. Waxay sheegtay inay filayso in labada wadan u yimaadaan dhageysiga maxkamadda. Go'aanka cusub ee dhageysiga dacwadda badda mar kale dib loo dhigay ayaa yimid kadib markii Kenya mar labaad codsatay dib u dhigista. Jadwalkii hore ee maxkamadda u dejisay dhageysiga dacwadda ayaa ahaa 9 ilaa 13 Sebtembar, hase yeeshee waxaa dib loo dhigay ilaa 4 Noofembar kadib codsi ka yimid Kenya. Si kastaba Kenya ayaa dhowr toddobaad ka hor mar kale codsatay in kiiska dib loo dhigo taasoo dhalisay go'aanka cusub ee ka soo baxay maxkamadda ICJ. Soomaaliya ayaa labada goorba diiday in kiiska dib loo dhigo, hase yeeshee maxkamadda ayaa tixgelisay codsiga Kenya. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in dowladdu ogoshahay go'aanka maxkamadda oo noqon doona mid kama dambeys ah. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku qanacday go'aanka maxkamadda isla markaana ay diyaarsan doonto qorshaheeda xilliga loogu talagalay in la yimaado maxkamadda. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horey u diiday go'aanka in dib loo dhigo maxkamadda laakiin aysan ka weyneyn garsoorka maxkamadda oo go'aamada maxkamadda leh. Maxkamadda ICJ waxay go'aamisay in dhageysiga dacwadda badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya laga dhigo 8 Juun bisha 12 2020 taa oo ah in Soomaaliya markaa ay ku jirto xilli doorasho. Markaana fiirina Galgaduud wararka ka imaanaya. Xiisad ayaa ka taagan degmada Balambal kadib dil ka dhacay. Wararka aan ka helayna deegaanka Jiiclo oo hoostaga degmada Balambal ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan halkaas lagu dilay hal ruux oo la sheegay inuu ahaa xoolo dhaqato. Maleeshiyada hubeysan ayaa duleedka degmada Balambal waxay ku dileen hal ruux oo ka mid ah dadka deegaanka, waxaana la sheegay in dilka kadib maleeshiyadka ay goobta iskaga baxsadeen sida ay sheegeen dad ku sugan Balambal. Wararka ayaa waxay intaas ugu darayaan in dilkan uu la xiriira aanooyin qabiil oo horey degmada Balambal iyo deegaanada ku xeereersan uga dhacay. Sidoo kale wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray deegaanka waxay sheegayaan in xiisad colaadeed ay ka taagan tahay duleedka degmada Balambal ee waqooyiga gobolka Galgaduud isla markaana haatan hal qof lagu dilay. Maamulka degmada Balambal iyo saraakiisha ciidamada dowladda kuwa Galmudug weli kama hadal dilkii ka dhacay Balambal. Maalmihii u dambeeyay deegaanada ku teedsan degmada Balambal ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxaa ka socotay dhexdhexaadinta beelo walaalaha oo horey halkaas ugu dagaalamay, waxaana xusid mudan in saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa qaybta 12aad ay ku dhawaaqeen in xal laga gaaray colaad halkaasi ka taagneed muddooyinkii dambe, balse mar kale ayaa la sheegayaa inay dib u soo ifbaxday. Markaana gobolka Gado dad badan oo ku heebaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarig loogu geystay gobolka Gado. Ilaa 10 qof oo ka mid ah ganacsatada ugu caansan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa loo xiray kiiska Cabdirashiid Janan, waxaana xariga raggan ka dambeeyay taliska ciidamada nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gado sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka. Dadka la xiray oo ka soo jeeda heebta madaxweynaha Soomaaliya waxaana xarigooda amray taliyaha nabad sugidda Jubbaland oo lagu magacaabo Cali Xasan Deer kuna heebaa wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo madaxweyne Farmaajo Muqdisho ku xiran. Dadka la xiray ee 10 qof gaaraya ayaa 3 ka mid ah waxay kala haystaan shirkado ka shaqeeya biyo gelinta Balad Xaawo iyo shirkado dhismooyinka qaabilsan
shirkadaha iyo ganacsiga. Raggan kuma goobno oo keliya beled Xaawo balse waxay caan ka yihiin deegaanada uu ka kooban yahay dhammaan gobolka Gedo. Xariga mas'uuliyiintan oo si weyn looga dareemay Gedo ayaa sidoo kale waxaa ku lug leh taliyihii ciidamada xoogga Soomaaliya ee gobolka Gedo, sidoo kalena mar ka mid noqday baarlamaankii 8aad Jamaal Xasan Farey iyo gudoomiyaha haweenka beled Xaawo. Ehelada dadka xiran oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay inay jiraan dad kale oo ku heeba madaxweynaha Soomaaliya oo ku xiran degmada Doolow ee gobolka Gedo, kuwaasoo iskugu jira odayaal iyo aqoon-yahano ka soo jeeda heebta madaxweynaha Soomaaliya. Degmadan ku xiran dadkani ayaa sidoo kale waxaa horey uga tali jiray Doolow wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo Muqdisho ku xiran muddo 2 bil ah oo u xiran madaxweynaha Soomaaliya. Guud ahaan gobolka Gedo ayaa saacadihii la soo dhaafay aad looga dareemay arrintan, waxaana ay soo taraya baaqa iyo qayradhaanta dhaqanka gobolka Gedo, taasoo ku saabsan in aan qabiil lagu saleyn xariga wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo Muqdisho ugu xiran dowladda Soomaaliya uu hogaamiyay madaxweyne Farmaajo. Cabdirashiid Janan waa saaxiibka kaliya Axmed Madoobe. weli ma jirto wax war oo ka soo baxay mas'uuliyiinta ammaanka ee maamulka Jubbaland, waxaana suurtagelin inaan xiriir la sameeyno hay'adaha ammaanka Jubbaland iyo taliyaha arrintan lagu eedeeyay. Markaana Hiiraan, sida ay sheegeen wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegayay in jidka ay shabaab u galeen gaari sidii qaad oo marayay wadada xiriirisa degmooyinka Buula Bardi iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Dad goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in shabaab ay gubeen gaarigii qaad ka siday, sidoo kalena ay dileen 2 ruux oo la sheegay inay la socdeen gaariga. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in hadda aysan ka hadli karin dhacdadaasi balse ay wadaan baaritaan iyo dabagal. Ayaa ku jirta go'doon, waxaana shabaab ay dhowr jeer ka fuliyeen weerar ka dhan ah ciidanka dowladda iyo sidoo kale gawaarida qaadka qaada. Deegaanada ay joogaan shabaab ayaan laga ogoleen in la geeyo qaadka. Markaan haddaan fiirino Hargeysa, wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa sheegay in khilaaf cusub uu ka taagan yahay guddiga doorashooyinka ee maamulka Somaliland. Khilaafka oo mid xooggan ayaa ka dhashay kala shaandhayn guddigaasi sida ay shaaciyeen mas'uuliyiinta maamulkaasi lagu sameeyay. Madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay inay jirto warqad uu qoray xisbiga mucaaradka isla markaana u gudbiyay golaha wakiilada Somaliland. Biixi ayaa sheegay in kala shaandhaynta xubnaha guddiga doorashada ay xaq u leeyihiin golaha wakiilada Somaliland, muhiimna ay tahay in looga dambeeyo si ay u gutaan waajibaadka loo igmaday. Guddiga doorashooyinka cusub ee Somaliland ayaa ka kooban 7 qof, kuwaas oo kala ah 2 ka mid ah golaha guurtida, min 1 xubin ay leeyihiin 2 xisbi ee mucaarad iyo madaxweynaha oo 3 xubin leh. Lama oga halka uu ku furan doono khilaafkan cusub ee salka ku haya dhismaha guddiga doorashooyinka Somaliland oo ka dhashay cabasho ka timid dhinaca mucaaradka ee maamulkaasi. Markaana warkii dibadda, saraakiil ka tirsan Mareykanka ayaa dib u eegaya qorshooyinka ah in la daadgureeyo ilaa 50 bambaanooyinka nukleerka ah oo muddo dheer lagu kaydinayo saldhigga ciidamada Mareykanka ee ku yaala Turkiga kadib howlgal militari oo Ankara ee waqooyiga Syria, sida lagu sheegay warbixin. Saraakiil ka tirsan wasaaradaha arrimaha dibadda iyo tamarta Mareykanka ayaa maalmo ka hor waxay ka shireen waxa laga yeelayo 50 madaxa ee hubka nukleerka ee Mareykanka ka yaala Turkiga iyo qaabka ay ula soo bixi karaan, sida uu daabacay wargeyska The New York Times ee dalka Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa bilowday inay ka fakarto waxa laga sameynayo hubka nukleerka ee yaala saldhig militari oo ku yaala koonfurta bari ee dalka Turkiga kadib markii labada dowladood uu soo kala dhex galay mugdi. Hubkaas Mareykanka u yaala dalka Turkiga ayaa la sheegay inuu xayiray madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo diiday inuu Mareykanka la baxo hubkiisa halkaasi ka yaala. Xukuumadda Washington ayaa isku dayaysa sidii xal diblomaasiyadeed looga gaari lahaa arrintan xilli Turkiga uu waqooyiga dalka Suuriya ka wado duulaan uu ku baacsanayo Kurdiyiinta Syria. Madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqday mid xaqiijiyay hubka nukleerka ee Mareykanka u kaysan dalka Turkiga, taasoo ahayd sir aan muddo la shaacin, wax badanna aan laga ogeyn. Xubnaha aqalka wakiilada ee baarlamaanka Mareykanka oo ay ku jiraan kuwa xisbiga Jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa cambaariyay tallaabada uu Mareykanka ciidamadiisa ugala baxay dalka Syria. Madaxweyne Trump oo warbaahinta u sheegay in Mareykanka uusan ahayn booliska caalamka. Daawadayaal, waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galwareed Media. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan.